TikTok wuxuu soo jiitay qiyaastii 2 bilyan oo ruux oo isticmaala dunida, kuwaas oo intooda badan ay dhalinyaro yihiin. Kaamiradu waxay ahaan jirtay mid ka mid ah kuwa ay ku soo caanbaxaan dadka sameeya filimada iyo wariyaasha telefishinada, kuwaas oo haystay fursad khaas u ah inay qaabkaas lacag uga sameeyaan. balse baraha bulshada oo hogaaminayo TikTok ayaa waxba kama jiraan ka soo qaaday arrintaas. Waxay sahleen in qof walba uu soo hor istaagi karo kaamirada una caan noqon karo isagoo weliba lacagna ka sameyn kara qaabkaas. TikTok wuxuu fududeeyay in kaamirada telefoonada uu ka faa'iideysto qof walba oo daneynaya. Qaarkoodna waxay bil kasta ka sameeyaan $10,000. kuwa badan oo ka mid ah kuwa isticmaala bartan baraha bulshada isku xirta waxay u tahay isha ugu muhiimsan ay ka soo saaraan dhaqaalaha iyo nolol maalmeedkooda aasaasiga ah. Haddaba xagee ka timaadaa lacagtani? Maxamed Alhanduur waa khabiir ku xeeldheer habka suuqgeynta loogu sameeyo dhinaca online-ka iyo baraha bulshada oo mid ka mid ah uu yahay TikTok. isagoo qudhiisa waxa uu bartaas ku leeyahay qiyaastii 500,000 qof oo taxana bogiisa ah. Haddaba waraysiga uu siiyey BBC laanteeda af Carabiga ayuu ku sharaxay 3 qaab oo lacag looga sameeyo TikTok. Qaabka koowaad waa taageero toos ah. qaabka ugu horeeya waa caawinaad toos ah, taasoo dadka isticmaala TikTok ay bixiyaan mararka ay daawanayaan muuqaalo toos loo baahinayo. halkaasi oo qof walba ku yaboohi karo inuu si samafal ah ugu deeqo lacag uu siinayo qofka muuqaalka leh, taas oo ugu muujinayo mahadcelin iyo sida uu ugu helay xogtaas la soo gudbiyey ama madadaaladaas. lacagta marka dambe shirkadda TikTok ayaa xoogaa yar ka reebata ka hor inta aan la soo gudbin qofka loo waday. Haddaba qaabka labaad maxay tahay? xayeysiin suuqgelin ah. qaabkan labaad waa hab heshiis ah oo xayeysiin suuqgelin ah loogu sameeyo shirkadaha, taas oo Alhanduur ku tilmaamay sida lacagta ugu badan looga helo TikTok. shirkadda cayimin ayaa la soo xiriiraya qofka waxayna ku codsanayaan inuu suuq geliyo badeecooyinka kadibna wuxuu u gado la siiyo saami la isku afkartay. qofka taageerayaasha badan leh wuxuu sidaas ku suuq gelinayaa wax soo saarka shirkadda, isagana lacagtii ayuu wax ka helayaa. waxayna mar walba ku xiran tahay sida uu u dadaalayo iyo sida ay taageerayaashiisu u badan yihiin. Alhanduur waxa uu diiradda ku saaraa TikTok xayeysiimo uu sameeyo shirkado iibiya qalabka online-ka loo isticmaalo. waxa uu sheegay in mararka qaar saamiga dadka qaabkan wax u xayeysiiya ay helaan u gaari karo ilaa 60% iyo wax ka sii badan oo ka mid ah kharashka shayga uu iibiyey. Alhanduur oo ah nin hadda ku jira da'da 30-yada waxa uu sheegay in alaabta uu heshiiskan ku iibiyo uu bil walba ka helo lacag dhan $1,000 ilaa $3,000. hase yeeshee isaga gebi ahaanba TikTok uguma tiirsana dhaqaale ahaan maadaama uu agaasimo ka yahay shirkadda qalabka korontada iibise ee fadhigeedu yahay Sacuudiga. Haddaba maxay tahay talaabada saddexaad? talooyin la siiyo dadka. qaabka saddexaad ee lacag looga heli karo TikTok waa in dadka ku xiran la siiyo talooyin dhinacyo kala duwan ah. markaasna TikTok waxaa loo adeegsanayaa oo kaliya in lagu soo gudbiyo adeeg. TikTok waa adeeg u furan qof walba oo doonaya inuu iska bandhigo shakhsi ahaantii waxa uu doonayo inay dadka kale ka faa'iidaan. shirkadda Shiinaha ee iska leh TikTok oo lagu magacaabo ByteDance waxay dhowaan kordhisay waqtiga muuqaalka la duubi karo oo markii hore ku koobnaa haddana la gaarsiiyey ilaa 3 daqiiqo. talaabadaas ayaa dadka adeegsada siinaya fursad dheeraad ah oo ay macluumaadkooda ku gudbin karaan si ay dhaqaale ugu sameeyaan. haddaba adiga kan daawanaya ma leedahay ama akoon ma ka leedahay TikTok? maxaa yeelay dadka badankooda Soomaalidu waa kuwa wada TikTok arena.